النحو. الشعب العربي شعب واحد، والجيش العربي جيش واحد، ولن يفرق بيننا الاستعمار أو أعوان الاستعمار. كوب iyo 30 bishii May 1967 midowgii Sovietku waxay dalka Masar ku wargeliyeen in ay tayin doonaan ciidamadii Yuhuudda si ay u qabsadaan dalalka Carabta gaar ahaan Syria iyo Falastiin. isla maalintii labaad hogaamiyihii dalka Masar Jamal Abdel Nasser waxa uu dunida caalamka u sheegay inuu 130,000 askari uu dhaqaajin doono Sinai oo ay Yuhuuddu difaac kaga jirtay si uu uga hortago weerarka Israa'iiliyiinta. xiisadda dagaalkuna waxa ay dilaacday May 16keedii Jamal Abdel Nasser waxa uu ka baxay xeerkii nabadaynta ee UN-tu ay u dejisay Sinai iyadoo 6 maalmood kadibna madaxweynihii dalka Masar uu xiray marinbiyoodka Tiraan oo ay xidhayeen maraakiibta dagaalka ee dalka Masar si ciidamada iyo doonyaha Yuhuuddu aanay marinbiyoodkaasi aanay uga gudbin. shacabka Yuhuuddu waxay ku kalsoonaayeen awoodda ciidankooda dhanka kale dalalka Carabta iyo Masarna waxay habeeliyeen tallaabada uu Abdel Nasser u qaaday balse dalalka Carabta ee ay hormoodka u ahayd Masar waxa ay mooganayeen ciidamada Yuhuuddu inay aad u qalabeysan yihiin oo ay dagaal diyaar u yihiin waqti kasta. xilligaasna warbaahinta dunidu waxay ahaayeen kuwo isbarbardhig awoodeed ku sameynaya Israa'iil iyo Carabta iyo xaaladda labada ciidan. madaxweynaha Mareykanka Lyndon Johnson waxa uu ugu baaqay labada dhinac ee dagaalku ka dhaxeeyo inaysan bilaabin colaad qaraxda oo saameyn badan leh balse xoogagii Carabta dareenkaasi hoos uma dhigin halgankoodii. sikadiisa 5 Juun subaxnimadeedii 7:45 daqiiqo diyaaradaha dagaalka ee Yuhuuddu waxa ay duqeeyeen marinbiyoodka Tiraan iyo Sinai. 5 Juun isla duhurnimadeediiba 200 oo diyaaradaha jadka ee dagaalka ee Israa'iiliyiintu waxay baabi'isay 10 fadhiisin oo ay ciidamada Masar lahaayeen sidoo kale waxay curyaamiyeen 180 ciidamadii cirka ee dalka Masar. si kastaba ha noqotay ciidamadii Masarida waxa la siiyay ogeysiis been oo ahaa inay Syria iyo Jordan iyo Iraq ay la baxayeen ciidankooda iyagoo cabsi xoogan ka qaba Yuhuudda. maalintii labaadna sikadiisa waxa ay u soo weerareen ciidamadii Israa'iil fadhiisinadii xoogagga Carabta iyadoo Israa'iil si dhib yar ay ula wareegtay gacan ku hayntii cirka. ciidamadii Masaariduna waxa ay isugu soo biyashubteen difaaca dhulka oo kaliya. ciidamadii Yuhuuddu waxay gudaha ay u galeen Sinai iyo Jordan iyagoo dilay boqor Xuseenkii ka talinayay Jordan walow ay qabiilkiisa isku dayeen inay difaacaan. 6 Juun abaanduulihii Masaarida ee Generaal Abdul Hakim Amir waxa uu isku dayay in uu ka hortago ciidamadii Yuhuudda isagoo ciidankiisana dib u habeyn ballaaran ku sameeyay. ciidamadii Jordan markii ay ka war heleen xaaladda adag ee dagaalka waxay sameeyeen dib u gurasho iyagoo wada banaan siiyay ciidamadii Israa'iiliyiinta. maalintii 4 Juun 7 Israa'iiliyiintu waxa ay ku guuleysteen ka talinta xuduudaha Jordan. maalintii 4 ee dagaalkana waxay gaadheen marinbiyoodka Suez Canal iyagoo xataa Sinayna gacanta ku dhigay. waxaana dumay ciidamadii Jordan, Syria iyo Masar. maalintii 5 ee dagaalkana Israa'iiliyiintu waxay qorsheynayeen duulaanka buuraleyda Golan Heights iyagoo ciidamadii Syriaankuna kala hortagay iska caabin xoogan balse si la mid ah sidii ciidankii Masaarida ay u jabeen ay iyaguna hubkoodii ay uga yaaceen. xaafid al-Asad oo ahaa wasiirka difaaca ee Syria ayaa golaha UN-ta markiiba horgeeyay heshiis xabad joojinaya in ciidankiisa dib loo dhiso. maalintii 6 ee dagaalkana Israa'iiliyiintu waxa ay aqbaleen heshiiskii xabad joojinta ee UN-ta balse waa xilli ay baabiyeen oo ay dhibaateeyeen bariga dhexe iyo dalal awood badan lahaa. dagaalkan inkastoo koobnaadana waxa uu ahaa mid saameyn togan iyo khasaaro lixaad laba ku yeeshay xaaladda deganaanshiyo ee bariga dhexe. saaduna socoto barnaamijyada dambe subscribe garee.